السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومر kale iyo muuqaal kale oo kamid barnaamijkeena Isla Noolow. Intaan isla socotay muuqaalkii kan ka horeeyay waxaan kaga soo hadalnay meelaha faraha isbarashada. In shakhsigu isbarta meelaha faraha waxaan soo taxnay ilaa 5 qodob ama 5 meelood oo muhiim ah. Waxa ugu horeeya sifada shakhsiyadda. Personality trait. Waxaan soo sheegnay oo soo wadaagnay Big 5 ama aragtida 5 waaweyn. Waxaan soo sheegnay qaabka aad u ogaagto sifaadkaas ay kugu kala badan yihiin. waxaynu ka soo hadalnay values qiyamka ama waxyaalaha muhiimka u ah qofka bini'aadamka waxaynu ka soo sheekaysanay oo la fagurnay habitska ama caadooyinka waxyaalaha sida maalinlaha uu qofku u qabto qaabkay u saameynayaan horumarkiisa iyo horsocodkiisa waxaynu ka soo hadalnay baahiyaha ama needska baahida wada qofka aadamaha waxaynu soo sheegnay in tahay baahidu hooyada wax soo saarka marka dhammaanteen baahi baynu wada waxaynu wadaagnay aragtidii Abraham Maslow baahida u kala qaybisay 5 dabaqood ee kala sareeya waxaan soo kala ka sheekaysanay emotionska niyadkaaca ama qeyrada qofka iyo qaabka ay u saameynayso natiijooyinka uu dibadda ka helayo iyo guud ahaan adduunyada dibaddiisa qofku markuu ogaado 5 qodob ee muhiimka ah waxa ka dhex abuurma fikirka guud ee qofku iska qaadanayo aragtida guud ee iska qaadanayo ayaa halka ka abuuranta afka qaado waxa lagu oran doonaa self concept marka self concept waa fikirka guud oo qofku iska qaadanayso maanta waxaan dul istaagaynaa oo ka hadli doonaa fikirka qofku iska haysta hadduu noqdo mid negative oo wanaagsanayn soo noqonayo qofku hadduu mid positive wanaagsan oo qurux badan noqdo soo noqonayo qofku iyo qaabka loo horumarin karo loo hagaajin karo loo tayin karo haddii fikirka uu qofku iska haysta uu noqdo mid positive oo qurux badan oo wanaagsan qofku wuxuu yeelanayaa astaamahan kow wuxuu noqonayaa qof isku qanacsan qofku qanacsan sida uu egyahay sida uu fikiro iyo gabi ahaantiisaba dadka inta badan positive self concept-ga leh waa dad aqbala waxyaalaha aanay bedeli karin waxyaala badan aad bedeli karin baa jira muuqaalkaaga ma bedeli kartid dhararkaaga wax kuma biirsan kartid waxna kama goyn kartid waxa kaliya ku furan waa inaad aqbasho waa dad aqbalay waxyaalaha aanay bedeli karin sidoo kale waxay leeyihiin kalsoonida iyo aaminsanaanta inay bedeli karaan waxyaalaha ay u baahan yihiin inay bedelaan ee naftooda ku saabsan inta badan dadka fikirka wanaagsan ee quruxda badan iska haystaay dib u dhacu ma ragaadiyo waxaa nolosheena qaybka qofku inuu wax waayo inuu dib u dhaco in wixii uu rajaynayo wixii filanay wixii uu oo dhan ay u suurtageli waayaan taas ma aha mid ragaadisa dadka fikirka wanaagsan iska haysta sidoo kale aad ugama walwalaan afkaaraha iyo fikirada iyo faallooyinka ay dadka kale ka dhiibanayaan waxaa iska caadiya waxaynu nahay dad ku dhex nool badweyn bulsho kala wax wanaagsan baa laga sheegay wax wanaagsan baa laga sheegay inta badan dadka fikirka wanaagsan iska haystay fikirada ay dadku ka sheegayaan ma aha kuwa aad u saameeya ama aad ugama walwalaan sidoo kale dadka fikirka iska qabaan ama aragtida guud ay iska haystaan ay tahay negative ama mid aan wanaagsanayn waxaa inta badan aad ku garanaysaa waxay aad uga walwalaan qiimaha waxaa bini'aadamka ma jiro qof dhammaysa oo dhinac walba ka dhisan qof kasta wuxuu leeyahay qiimo weakness uu leeyahay waxyaalo badan oo qiimaha baa jira inta badan waxay ku mashquulaan waqtigooda geliyaan fiirsiga iyo faalaynta qiimahaas waxa kale ay la nool yihiin qaladaadkii ay soo galeen tagtadoodii bini'aadam baynu nahay noloshana inaad qaladkaa wax laga bartaa marka dadka inta badan fikirka iska haystaan inuu negative self concept yahay waxaad arkaysaa waxay la nool yihiin qaladaadkii ay soo mareen waxay aad uga cabsadaan isku dayga waxyaalo cusub inuu wax cusub barto inuu shaqo cusub bilaabo ama inuu wax cusub qabto waxyaalo cusub oo dhan bay aad uga baqayaan markasta iyaga hoos isku haya ma qaban karo ma samayn karo iga daa waa mar walba iyaga ayaa ah caqabada koowaad ee horumarka noloshooda iyo naftooda u diidan waxay dareemaan qiimo la'aan waa qiimahooda markasta liita iyaga ayaana liiday marka waxaan dul istaagaynaa sidee loo horumarin karaa ama loo tayin karaa fikirka oo qofku iska qabo kow waxaad u baahan tahay inaad baadhid tayooyinka iyo waxyaalaad ku wanaagsan tahay markastoo aad og tahay waxaad ku wanaagsan tahay oo aad qabanaysidna waxaad ku kalsoon tahay inaad waxaa si fiican u qaban doontid kalsoonidaasna waxay dhisaysaa oo ay qurxinaysaa fikirkaad isku hayto waxaad isku hayto qof hawshan qaban kara waxaad u baahan tahay inaad aad iska ilaalisid isbarbardhigga dadka kale aadamaha dhammaan way kala duwan yihiin qof kasta waa unique keligii baa noocaas ma jirto sabab aad isku agdhigto qof aadan la mid ahayn marka waxaad u baahan tahay inaad aad uga fogaato isbarbardhigga dadka kale
waxaa kaloo aad u baahan tahay inaad iska ilaalisid oo fiirfiirsiga iyo baarbaaridda qaladaadka dadka kale si aad adigu naftaada uga dhaadhicsid inaad tahay qof ka wanaagsan. dad badan baa waxaad arkaysaa inay arkaan qaladaadka dadka kale inayba taas laftarkeeda moodayaan wanaag iyo aragti ay dadka dheer yihiin. ka fogow inaad u fiirsato baarbaarid qaladaadka dadka kale. baro dhaliil aqbalidda. waxaa dhacaysa in lagu dhaliilo ama in lagu sheego waxyaalaad ku wanaagsanayn. waxaad u baahan tahay inaad barato qaabka loo aqbalo dhaliisha, loo dhagaysto, isla markaana loogu mahadceliyo qofka ku dhaliil. waxa laga yaabaa inuu yidhaahdo niyow ama hebelo waad xanaaq badan tahay, isla markaana adigoo ka xanaaqay aad ku jawaabto maxaan ku xanaaq badanahay, waxa hadalkii lagu yidhi baa kaa xanaajiyey. waxaad u baahan tahay inaad dhaliisha aqbali kartid isla markaana aad u mahadcelisid qofkii. waxaad u baahan tahay kale inaad bilowdid qabashada waxyaalaha aad xiisayso, waxyaalaha aad jeceshahay. markastoo aad qabanayso shay aad jeceshahay, markastoo aad qabanayso shay aad xiisayso, waxaa kor u kacaysa kalsoonida aad ku qabto awoodda aad shaygaas ku qaban karto. activitieska ama waxqabadyada aad ku wanaagsantahay oo qabatahay waxay dhistaa oo tayaysaa fikirka aad iska qaadanayso adigu. waxaa kaloo aad u baahan tahay oo qodobka ugu dambeeyana ah aragti wanaagsanaanta. waxaad u baahan tahay inaad noqoto qof aragti wanaagsan. aragti wanaaggu waxaa la dhasha maaha, waa la bartaa. mid ka mid a tabaha ama qaabka aad u baran karto waxa weeye aragti wanaaggu waa inaad fikirkaaga ku jira iyo afkaarahaaga aad u qeexi kartid qaab wanaagsan ama positive. markasta wax maskaxda ku jirto si positive u qeexda waxay kuu hogaamin doontaa inaad noqoto qof aragti wanaagsan. fiiri oo baad oo u fiirso wanaagga iyo horumarka iyo tayada nolosha dadka kale. taas waxay kuu fududayn doontaa in adigu wax wanaagsan ee kugu jira ee quruxda badan aad aragtid. mar walba noqo qof aragtidiisu ay wanaagsan tahay oo qurux badan tahay. waxaa inoogu soo koobaya maqaalkan maanta. isbaro, is sharaf, is ixtiraam, isku kalsoonow.